نمعي قلت هذه وينه قولي نابت بدن الله يو كارسي نبيكي الله يو كارسي نبيكي الله يو حبين قلي ميل قوانا حداد قريات كوادو باعنان كده لحاين استاكتو اركونا قودل كوغو بلابو كوفاعيو ديبع اسقودو قاربا ليسكو توسيايو دوكسا لقبوت صداي عنيقا نبي قواقو عيقي كارسي نبيقي الله يو كارسي نبيقي الله يو kusoo dhawaada daawadayaal barnaamijka arrimaha bulshada oo aanu ku soo qaadan doono mashruuca khayriga ee ka socda degmooyinka Dhoqoshay Beledhig iyo Xagal waxaana mashruucaasi si iska wax u qabsaa oo maamula muasasada tacaawun cala al-khayr oo kaashanaysa bulshada ka soo jeeda degmooyinkaasi waxaana mashruucaasi khayriga uu ku saabsan yahay hirgelinta madaarista iyo sidoo kale ardaydii ka aflaxday iyo sidoo kale guulihii laga gaaray mashruucaasi waxaana mashruucan ka aflaxay isla markaana ka faa'iiday arday tiro badan oo baratay xifdinta quraanka kariimka kuwaas oo ku kala nool degmooyinkaasi sidoo kale malcaamadaha iyo qalinjabinadan waxa barbar socotay wacyigelinta mukhaadaraadka iyo sidoo kale muxaadarooyin ku saabsan dhaqanka iyo sunnihii rasuulka mashruucani waxa uu si weyn wax uga bedelay caruurta iyo bulshada ku dhaqan degmooyinkaasi maadaama ay degmooyinkaasi ka soo baxeen arday dhamaysatay isla markaana xifdiday quraanka kariimka Sheikh Maxamed Cabdullaahi Jaamac oo kamid ah mas'uuliyiinta muasasada tacaawun cala al-khayr ayaa ka waramaya guulaha laga gaaray mashruucaasi waxaana uu mahadnaqay cid kasto qaran ka geysatay hirgelinta iyo suurtagelinta mashruucaasi khayriga waxaan halkan ku duubayaa warbixin ku saabsan mashruuc khayriya oo muddo imika 5 sano ah shaqeynayay mashruuca magaciisa la yiraahdo ama la yiraahdo muassasatul tacaawun cala al-khayr ama isu kaalmaysiga maxay raadayay khayrkii wanaag mashruuca waxa la bilaabay ama muassasada waxa la bilaabay 2018 waxaana lagu bilaabay 3 degmo oo kala ah degmada Dhoqoshay degmada Balkhayr iyo degmada Xagal waxaana lagu bilaabay sida ay Ilaahay subhanahu wa ta'ala kitaabkiisa iyo sunnada rasuulka kor ugu qaadi lahaayeen runtii waxa halka laga furay 3 malcaamadood oo mid walba loogu tala galay 30 arday 30 ka arday loogu tala galay muddo ugu badnaan 4 sano inay quraanka ku xafidaan oo ku dhameeyaan waxa kale iyaduna barbar socotay in wacyigelin badan lagu sameeyo degmooyinka iyo aagaga ay xukumaan in wacyigelin diini lagu sameeyo oo dadka la baraarujiyo loona sheego Ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada rasuulka runtii mashruucaasi inta badan uu najaxay arday badan ayaa ka qalin jabisay oo quraankii dhameysay ardayna wali waa ku jirta xagga isbedelka degmooyinka siday markii hore ahaayeen iyo sida ay hadda yihiin wax isu dhow maaha isbedel weyn baa ku dhacay dad badan baa maxay raadayay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku xidhmay awalba waa ku xidhnaayeen yani si laba jibaaray dad badan baa xataa qaadkii iska daayay iyo waxyaalihii aan wanaagsanayn wax badan oo faa'iido ah baa mashruucaas soo kordhiyay waxaana had iyo goor la qaadi jiray jawlad ama markaas bixitaano dadka lagu baxayo si dadka loo wacyigeliyo oo Alle kitaabkiisa loo xusuusiyo subhanahu wa ta'ala guul badan baa laga gaaray degmooyinkuna runtii way kala horeeyeen degmada Dhoqoshay baa ugu horeysay furitaanka degmada Xagal baa ku xigtay degmada Balkhayr baa ugu dambeysay ama Egas Beledhig
runtii degmada xagal macallinkii joogay wuu dadaalay ardaydii soddonka uu hayay 27 baa qur-aanka dhameeyey 3na waxba uma hadhin dhowaan bay ka baxayaan ardayda xagal ka baxday dabeedna waxaa loo furay machad islaamiya oo looga furay degmadoodii oo ay hadda ku jiraan degmada Dhoqoshay 7 arday baa sanadkii hore dhameeyey sanadkanna waxaan filayaa ilaa 12 inay dhamaynayaan adugu duruufo badan oo yimi baa dad degmooyinka qaarkood dib u dhigay xagga waa ka yara duwanaydo xagga abaaraha marka la eego abaar badani kuma dhicin laakiin degmooyinkan bal khayr iyo Dhoqoshay abaaro badan baa ku dhacay oo dadku hayaamay oo lagaba guuray taas waxay u keentay dib u dhac weyn maadaama xanuunna soo galay xanuunana way jireen oo de xanuunaba halkan koofiga oo in badan isaguna inagu dhex jiray marka waxyaalahaas ka qayb qaatay inay dib u dhac uu ku dhaco markaas daraadeed Dhoqoshayna adugu insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa sanadka soo socda 23ga inay ka wada baxaan degmada bal khayr oo u dambeysay runtii degmadaasu ta'akhur badan baa ku dhacay ta'akhur badan ardaydeedina aad bay u hooseysaa runtii de waxyaalo duruufaha yimi oo ardayga anagu markii hore aanu de milcamada fulanay waxa noo shardaha ardayga inaan waalidku ka xayn oo milcamada marnaba ka saarin wax kasto yimaada ee uu daayo si uu quraanka u dhigto laakiin waalid badan waxay isticmaalaan inay ardaydii ka haystaan iyagoo milcamadii ku jira ama xoolaha u dirsadaan ama dana gaar ay leeyihiin u dirsadaan marka magaalada bal khayr waxay u badneed waalid noocaas bay u badneed dabeedna waxay ku keentay de ardayga wixii loo dhigay ee la baray muddada yar la kaxeeyo ee 10 ama 15 casho ka maqnaado ee wixii uu ilaawaya dabeedna waxa weeyeen bilow haddana dib u soo bilaabo arday badan oo meelaha sare marisay baa laga kaxaystay marka taas dib u dhac weyn bay ku keentay oo ardaydeedu yani aad iyo aad bay u hooseysaa waxaan rajaynaynaa insha Allah iyaduna inay dadaali doonaan markaan isku soo duudubo mashruuca khayriga ah waxaa ka qayb qaata dad badan oo muxsiniina shirkado ayaa ka qayb qaata oo bixiya hantida ay markaas macallimiintu qaadanayso ama jawlaadka lagu qaadayo budget sanawiya ayay leedahay oo sanad walba loo sameeyaa macallimiinta oo kale مثلا macallin wala $400 buu qaataa de waa dareemaysa lacagtu intay leeg tahay sanadkii waxa barbar socda jawlaad la qaado oo ama bixitaano la qaado waxa barbar socda dowraad la qabto cilmiya oo inta baanu qabananay runtii yani markaasi waxyaalaha soo dhamay hanti bay u baahan yihiin hantida waxa bixiya dad muxsiniina oo aad iyo aad u dadaala ilaahay miisaanka xasanaadka ha u saaray iyo shirkado runtii aan ka xusin karo shirkadda aflax spare parts ka keenta shirkadda maxay raadayay ilays oo iyaduna aad iyo aad runtii uga qayb qaadata Sun Petroleum shirkadda la yiraahdo shirkadaha dhamaantood waxay caawiyaan mashruuca khayriga ah ilaahayna subhanahu wa ta'ala waxaan uga bariyaa in ilaahay maalka u barakeeyo waxay iyaduna ka shaqeyso guddi fulineed oo gacanta ku hayso 7 iyaguna aad u dadaala iyagana ilaahay miisaanka xasanaadka ha u saaro rag badan oo kale oo aan guddidaaba ku jirin oo iyaguna khayriga ka shaqeeya jiro haday jawlaad la baxaya baxa hadii maxay raad imtixaan la soo qaadayo soo qaada iyagana ilaahay subhanahu wa ta'ala miisaanka xasanaadka ha u saaro waxaan oo kale iyagana u ducaynayaa halkan uga ducaynayaa maxay raadaay wariye khaliil bila awraan oo runtii ilaa bilowgii ilaa hadda nala shaqeeya oo waliba si wanaagsan oo karaamo iyo sharaf la noola shaqeeya oo nala gudah oo yaani nala maqnaada habeeno oo runtii barnaamijyada iyo hawlaha suuqa ay dubarida ilaahay subhanahu wa ta'ala isagana waxaan ka bariyaa in ilaahay miisaanka xasanaadka u saaro waxaan ku gabagabeynayaa mashruucaas waa mashruuc khayriya barakallahu fiikum muxsiniinta ka qayb qaata waxaan leeyahay de sii wada intaas bixinasaan ba aakhirada ka horeysa waxa kale waxba tari maayaan marka barakallahu fiikum Allah idin barakeeye
ka qayb qaata. Sheekh Saleebaan Cabdilaahi Cadib iyo sidoo kale Sheekh Cabdicasiis Xasan ayaa ka warramay isla markaana ku dheeraaday guulaha iyo horumarka laga gaaray mashruucaasi waxaanay hambalyo u direen ardayda kala duwan ee ka faa'iideystay mashruucaasi khayriga ee ka socday degmooyinka Dhoqoshay Beledhiig iyo Xagal ee kor loogu qaadayo barashada diinta Islaamka. waxa ugu weyn maanta guushayno ah farxadayno ah waa ardayda inoo qalin jabisay midhaheeda aynu arkayno waxaanu ducaynaynaa ardaydaas in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala quraanka ay xifdiyeen ee ay barteen ee kalaamka Ilaahay ku sugo qulubtooda oo ay Ilaahay uu ka dhigo kuwa naftooda iyo nafaha kale ay ku anfacaan waxa kale oo ducaynaynaa macallinkii juhdiga iyo dadaalka ku bixiyay isaguna in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala miisaanka xasanaadka ugu daro waxa kale oo ducaynaynaa mu'assasada khayrka badan ragga xubnaha ka ah ee habeen iyo maalinba u dadaalaya sidii ay xoolahooda ugu bixin lahaayeen meeshii Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu yiri ku bixiya wama tunfiqu min shay'in tajiduhu 'inda Allah wax kastoo la bixiyo oo khayrka lagu bixiyo Allah subxaanahu wa ta'aala agtiisa baa laga helaya saaseen markaa ugu mahad celinayna in Allah intii khayrka iyo wanaaga ka shaqaysay waxa kale oo bushaaro inoo ah mu'assasadu waxay ballan qaaday ardayda takharrujtay ee hadda quraanka dhameysay inay maxad geyn doonto haddii Allah awoodda uu ka dhigo oo waqtiga ugu haboon ee ugu suuragalsan ee ugu macquulsan ardaydaas in la geyn doono waalidkana wixii looga baahan yahay in si gaara loogala kulmi doono haddii Allah awoodda ka dhigo taasi waxay ina tusaysaa wali mu'assasada inay ka go'an tahay arday kasta oo takharuja oo kamida saddexda degmo ee la soo sheegay inay u diyaariso meeshii ay u bedelan lahaayeen xigmadda ama macnaha ku jira ee ugu weyn wuxuu yahay deegaan kasta waa dadka la kaxeeyay ee diinta Ilaahay subxaanahu wa ta'aala la soo baray ee aqoon diinad lagu soo shubay inay deegaankooda ku soo noqdaan mar labaad si ay dadkooda ugu faa'iideeyaan guusha ugu weyn ee la raadinayo taas weeye halkan bilowgeedii hore waxay ahayd wax qariiba ama dadku ay aad iyo aad ula yaabaan suuragal inay tahay muddo intaa leeg in la arko dad quraanka dhameeyay oo diintii wax badan ka fahmaya oo maanta intaa soo qof ihtifaal iyo xaflado ay u sameynayaan laakiin waxaad ogaataa kullu shay'in aatin qariib wax kasta oo imanaya way dhow yihiin wax kasta oo imanaya waa wax dhow marka xataa lagu daro qiyaamaha waxaan leeyahay jazaakumullahu khayran hanii'an lakum xafladda reer Xagaleed ayuu maanta ka soo qayb galay qudadkeennii iyo caruurteennii quraankii xifdiday qaarkood ayuun baan aad iyo aad farxaddaas ugu bogaadinayaa waxaan qodobka labaad leeyahay oo anigu waan ku yara darayaa uun 3 sano ku dhowaad markii aynu furnay 3 sano inoo dhammaaday aynu furnay mu'assasadan oo sidaa la sheegay degmooyinka kale hawdka burcana ka qayb gala iyo tuulooyin kale badan markaana waan joogay waan ka soo qayb galay furitaankii waa wax Ilaahay lagu mahad celiyaa qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khayru mimma yajma'un wa farxad weey aad loogu farxo weey waxaan aad ugu mahad celinayaa oo doonayaa kelmadaas inaan ku khatimo horta raggan aadka u dadaalaya wadaadadeena khaasatan anagu inta badan waan ka maqanahay iyaga horta runtii uu ka mid yahay Maxamed Cabdilaahi iyo Siciid Awguure iyo raggan halkan fadhiya ninka la yiraahdo Cabdilaahi iyo qoladaas runtii waa qolada inoogu shaqada badan ee mu'assasadan waa leeyahay waxa uu ka sii shaqo badan baan oran karaa ragga miraha soo saaray oo ka wariyay maanta ka yahay Sheekh Axmed dhamaanteena uu ducaynaa Ilaahay ha barakeeyo gudoomiyaha degmada Xagal ee gobolka Saaxil Yuusuf Axmed Humbul gudoomiyaha degmada Dhoqoshay Axmed Jaahuur iyo odayaasha degmooyinka Dhoqoshay Beledhiig iyo Xagal ayaa u mahadnaqay mas'uuliyiinta mu'assasada tacaawun cala al-khayr iyo cid kastoo gacan ka geysatay hirgelinta mashruucaasi jawaabo waxa weeye horumar aad loo taaban karo baan degmooyinka kale warkoodu baan maqlay laakiin Xagal meesha la yiraahdo anigu aan joogay gudoomiyaha ka ahay horumar ballaaran oo la taaban kara baa ka dhacay
qur-aanka markii hore dee arday baa qur-aan loo bilaabay maantana waxay maraysaa heer intaas ay dhammaynayso oo inta ay in badan maxadka imka dhowr iyo 20-30 qaar ku dhowbaa maxadka ku jira oo dhigta qaybi qur-aankii bay dhigataa qaybi xagga hoosey dhigataa qaybi masaajidadii bay dhigataa oo ka dhigataa macallin caqiibo leh iyo odayaal iyo culimo qoladan muasasatun tacaawun cala alkhayr hawshaas si fiican bay ugu guulaysay ilaahayna waxaan uga baryayaa inuu ugu bedelo janno oo ku abaalmariyo janno sababtoo ah wixii ugu wanaagsanaa bay tacab ka geliyeen horumar badanna waa laga gaadhay waana lagu socdaa iminka waanay socotaa nuur baa ka muuqanaya xagal iyo cawaankeedii nuur baa degmadii ka muuqanaya nuurkaana waxaa keenay diinta kor loo qaaday caruurtii la baray ee guryihii la gaadhsiiyey xaafadii ee dumarkii dhiganaya ee raggii dhiganaya aada iyo aad baan ugu mahad celiyaya horumar weyn oo aada u ballaarana waa laga gaadhay ilaahayna waxaan uga baryayaa inuu ugu bedelo khayr ka badan kaa marka horeba waxbarashada bilowgu marka tahay ama gobolada ha noqdo ama degmooyinka ha noqdo ama tuulooyinka ha noqdee meesha qur-aanka iyo diinta lagu dhigunbaa waxbarasho ka bilaabanta barashadu tayo badan ma laha haddii aanay diini ku jirin marka intii ay diintu ka bilaabatay isbedel weyn oo waxbarasho oo xagga iskuullada ah oo xagga kastabaa kor u kacay hamagelin badanna dadkii lagu sameeyey miyiyadiibaa iminka laga soo wadaa qof waliba wuxuu ku dadaalayaa inuu horumarkan ka qayb qaato dadkii miyiga xoolaha ku raaci jiray dabadda iska joogi jiray meelaha wareegi jiray baa iminka markay arkeen faa'iidada soconaysa kusoo siqaya qaar qoysas keena qaar caruur gaara keena qaarba waxbay ku kordhayaanoo baahidu korbay marka ka dambaysaba korbay usii socotaa dadka in dee loo sameeyo xarumo lagu soo wax loogu dhigo sida maxad loo sameeyo sida qolaal ay jiifsadaan oo caruurtii markii dibadaha laga keenay miyiga laga keenay aan qoysaskoodiina meesha meel lagu xanaaniyo dee iminka waxay u baahan tahay in kor looga sii qaado intii hore waayo intii hore loogu talagalay aada bay uga sareysaa intaa iminka maanta baahideedii iyo waxbarashadeedii ay joogtay ay dhadhankan ay dhadhansadeen ay soo jiidatay markaa aada iyo aada bay muasasadaasi wax u tartay degmada iyo guud ahaan degaankaba si badanna degmadu way uga faa'iiday insha allahu cid kasta oo ka qayb qaadatay arrintaa ama adduun ha kaga qayb qaadato ama maskax ha kaga qayb qaadato aada iyo aada baanu ugu mahad celinaynaa waxaanan leenahay ilaahay miisaanka xasanaadka ha idinku daro dadan baan haynaa waxbedelkeedii oo ardadii kuwii ka qalin jabiyey ay hadda iyagii wax ka dhigayaan oo midhahoodii la guranayaa marka aada iyo aada baan ugu rajo weynahay inay wax badan weynay bedeshay oo way muuqataa insha allah waanay bedelaysaa oo haddadan magaaladii waxay noqotay magaalo soo iftay oo shalay waxay ahayd magaalada in xaafadaha lagu iibiyo qaarkood in suuqa lagu khamriga sidaa loo soo dhigdhigo oo aan la taaban haddadana waxaaba ay ku socotaa in xataa qaadkii la cunayey dad badan ay ka xishoodaan oo uu yaraado isticmaalkiisii xitaa iska daa muqaadarad kale waxaan ugu baaqayaa cid kasta hadday caruur tahay iyo hadday ciroole tahayba in ay ka faa'iidaystaan oo uga faa'iideeyaan dadkooda haween odayaal iyo da'yarta intaba inay uga faa'iideeyaan baan inta aan ka faa'iidaysanay ilaahay garansiina waana ugu ducaynaynaa in ilaahay garansiiyo oo ay faa'iidada ilaahay garansiiyo uu gurigooda ugu keenay kaan ugu baaqayaana kaa weeyey nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku odhan jiray saxaabada markuu la hadlayo qofka jooga hawsheega qofka maqan markaad bini aadmigu gaaran waxay ahaan spread the word kelmadda faafi waxa wanaagsan waa la isku gubaabiyaa intiina fadhidaa inay isku gubaabisaan haddaad tii reer balli khayr waxbarashada diinta iyo tamaadigaba in sare loo qaado waa laydin dadaalayaa hay-adda la sheegaya hamoodina hay-ad gaalo ama dowladeed waxa weeye dad isu tegay oo mujtamac isu tegay oo iyagu jeebkooda wax ka soo ururiyey ilaa halkan soconaya
ilaa balleha lala socday ilaa magaalooyinkoonu socday waxay socdaanna waxa weeye ehelkiinu ha barto oo diinta ha barto weliba ilaahay khayr ha siiyo muasasat tacaawan muasasadii ka mas-uulka ahayd inay hawshaa khayriga degmada soo gaadhsiiso iyagana aad baan ugu mahadnaqaynaa marka saddexaad waxaan u mahadnaqaynaa macallimiintii wakhtigooda qaaligaa ku bixisay bilaabasay 8 subaxnimo 12 maalinimo ku gaadhaysay macallin waliba 2 jeer ku soo noqonayay ee muddadaa yaree kooban ku dhammeeyey kitaabkii loogu talagalay ayaanu iyagana mahad u celinaynaa annagu deegaan ahaan insha allahu tacaala aad baan u soo dhowaynaynaa waayo waxa weeyaan dacwad soconaysa ardaygii kitaabkiibuu ka qaatay qofkii saamica ahaana dhegihiibuu ku qaatay waxay ahayd dacwad tabliiq oo qof kasta gurigiisa ugu gashay aad baan noo soo dhowayseen waa idiin shukri naqaynaa iyo cilmigaa la bartayna waxaan leeyahay dhallinyarada baratay iyo hablaha bartay ee sida fiican uga faa'iiday ku dhaqma aad iyo aad ha loogu dhaqmo ilaahay baa mahadle aanu mahadnaqaynaa marlabaadka waxa mahad iskale marlabaadka waxa mahadle culimadii ka qayb qaadatay madrasadda ayaanu mahad u naqaynaa ee ku bixisay juhdiga badan waalidiinta caruurta ardayda ku bixisay soddonka ku bixisay juhdiga iyo lacagta ayaanu mahad u naqaynaa waxaanu kaloo mahad u naqaynaa oo mahad iska mudan salebaan cabdulaahi cadib oo ka qayb qaata mar walba dhammaan waxa kale aanu soo dhawaynaynaa mahad u naqaynaa xildhibaanada ka soo qayb qaatay daawadayaal intaasi aan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkan aan kaga hadlaynay mashruuca khayriga ka socda degmooyinkaasi dhoqoshay baladhiig iyo xagal waxaana barnaamijkeeda la socodsiinaya anigoo ah khaliil barra awraan taniyo intaynu barnaamij noocan oo kale ku kulmi doona waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu nimciya galladaadii weyne guul iyo nabad badan allahayo gaarsi nabigii allahayo